Ma ogtahay khatarta ay leedahay inaad qof moobilkaaga u dhiibto? Cidna ha ku aaminin telefoonkaaga, walaalka, walaasha, hooyada, aabbaha, faamligaaga oo dhan, xitaa saaxiibkaagaad adduunka ugu jeceshahay. Waxaa jira dad bartay aqoon u leh cilmiga hacking-ka sida wax loo jabsado. Idinka oon isku meel joogin ayuu qofkaasi process dheer markuu maro kadib uu ku hagarayn karaa xogahaaga oo dhanna uu jabsan karaa. Siduu doono ayuu kaa yeeli karaa, laakiin waxaa jira dad aan cilmi lahayn haddana ka khatarsan kana halis badan. Noloshaadana baabi'in karaya iyagoon aqoon u lahayn sida qof macluumaadkiisa loo jabsado. Ayuu noloshaada halis weyn gelin karaa qofkaasi. Cid kalena maahan, waa adiga dadka kugu hareeraysan ee agagaarkaaga jooga. Waa dadka kula nool ee maalin kasta is aragtaan ambase waqtiga aad wada qaadataan. Waa shakhsiyaadka maalin kasta aad la kulantid, xitaa dadka aad guriga ku wada nooshihiin. Waan ogahay imika su'aasha kaa dhex gooxaysa hayga degdegin, anigaa ku sharaxaya sababta ay uga khatar badan yihiin dadka cilmiga hacking-ka soo bartay. Soo dhow daawada, waanigoo ah Nadra Siciid. Waxaan ka codsanayaa walaal inaad muuqaalkan like ii saarto sababtoo ah wax badan ayuu iga caawinayaa. Waad mahadsan tahay. Imise jeer ayay kugu dhacday inuu qof kugu yidhaahdo ii dhib moobilkaaga, qof ayaan ka wacayaa ambase game ayaan ka ciyaarayaa iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Maanta laga bilaabo qofna ha ku aaminin oo ha iskaga dhiibin telefoonkaaga. Adduunyada wax kasta way ka dhici karaan. Waxa dhici karta qof saaxiibkaaga aad ku kalsoonayd in lagu soo adeegsado isagoo loo soo hanjabay ambase lacag loogu ballan qaadayba. Cadowgaaga aad taqaanid waxa ka halis badan kana khatarsan kan saaxiibkaaga laakiinse aanad ogeyn inuu cadowgaaga yahay. Adigoon waxba iska ogeyn oo daacad ah ayuu ka codsanaya inaad moobilkaaga u dhiibtid. Waxaa jira applicationo u wada fududaynaya isagoo moobilkiisa iyo kaaga ka soo dejinaya hal app oo xidhiidha. Applicationkaasi wuxuu u sahlayaa ambase uu arkayaa dhaqdhaqaaq kastood moobilkaaga ka dhex samaynaysid ayuu la soconayaa. Hadday noqoto fariimahaad qoraysid adiga asxaabtaada isweydaarsanaysaa, passwordadaada oo kale, sawiradaada, muuqaaladaad daawatid iyo wax kastood ka dhex samaysid, dhaqdhaqaaq kastood ka dhex samaysid moobilkaaga qofkaasi wuu la soconayaa. Sir kasta oo moobilkaaga ku dhex jirta wuu la soconayaa, xitaa wuxuu awood u leeyahay inuu dhankiisa ka maamulo moobilkaaga. Haddaba shakhsiga raba inuu sidaas kugu sameeyo keliyata waxa ka xigta waxyaabahaas oo dhan inuu moobilkaaga gacanta ku dhigo. Adiguna adoo daacada ayaad moobilkaaga iskaga dhiibaysaa. Shakhsiyaadka noocan oo kale ah amba qofkani waddo kasta wuu u soo marayaa siduu moobilkaaga gacanta ugu dhigi lahaa. Maxaa kugu dhici kara qofkani haddii uu helo sirtaada? Ma ogtahay inuu sharaftaada oo dhan burburin karayo? Maanta laga bilaabo qofna ha u dhiibin oo ha ku aaminin telefoonkaaga gacanta. Soo ma ogid akoonnadaada in si fudud lagula wareegi karo hadday noqoto Snapchat, Twitter, Facebook iyo platform kastood isticmaashid dhammaantoodba. Tusaale, wuxuu isku dayayaa inuu Facebookaaga jabsado si toos ah u galo, laakiin ta keliyata u fududayn kartaa waa moobilkaaga message-ka kusoo dhacaya qofkani inuu helo. Waxaa jira haddii Facebookaaga aad kasoo gashid moobil kale ambase meel kale, isla markaba shirkadda Facebook message ayay kusoo diraysaa iyagoo kuu sheegay in ciwaankaagii meel kale laga soo galay. Waxayna ku weydiinayaan qofkaasi ma adiga. Haddii aad okay ku dhufato wuu ku daayay ciwaankaasi, sidaas ayaa lagula wareegay. Haddaba qofkan wuxuu kaa codsanayaa keliyata inaad moobilkaaga u dhiibtid si uu arko message-ka kusoo dhacaya. Cadowgaaga aad taqaanid waxa ka xanuun badan kana khatarsan kan kuu dhow laakiinse aanad garanaynin. Halis ayaad ku sugan tahay haddii qof kasta aad isaga dhiibtid telefoonkaaga. Intaas oo keliya kuma koobno waxyaabaha laga dhex samayn karo moobilkaaga. Bal ka waran haddii uu qof waddo kaaga soo horbaxo aadan aqoon u lahayn ambase aanad garanayninba. Qofkaasina si naxariis leh intuu dantiisa kugu sheegtay ayuu kaa codsanaya moobilkaaga inaad u dhiibto. Ma ogtahay markaad telefoonkaaga u dhiibtid qofkaas khatarta kaaga iman kartaa? Wuxuu fulin karaa mishino waaweyn hadday noqoto qof la dilayo amba dad in looga dhex hanjabo telefoonkaaga. Wuxuu ka hadli karaa mukhaadaraad ambase daraagis khatar badan. Waxaa dhici karta in dawladdu kasoo tixraacdo moobilkaaga arrinkaas, adiguna aad xabsi ku mutaysato. Runtii khatar weyn ayay kugu noqon kartaa. Adduunkan aynu joogno waxaa yaraatay aaminaadii. Imise jeer ayay ka dhacday social media in lagu faafiyo qof dumara ceebaheeda amba muuqaalo ay leedahay. Runtii lama koobi karo, way badan tahay. Waa inaad noqotaa qof taxadir badan, aadna isku ilaali sababtoo ah wax kastaa kugu dhici kara. Bal ka waran imika dadka baraankiyada isku sameeyo qofkii maqan ayaa waxay adeegsanayaan inay kamarada meel ugu qariyaan amba meel loo dhigo isagoon is ogeyn warna ka haynin. Haddaba dhinac kale aynu ka eegno. Ka waran haddii adigoo maqan qolkaaga kamarad lagugu sii dhex xidho, qolkaaga jiifkaad seexanaysid haddii kamarad lagugu sii qariyo. Markaad soo noqotid adigoon war ka haynina aad dharka iska bixiso ambase aad dharka iska beddesho, maxaa kugu dhici karaya? Sidaas si lamida soo ma dhici karta in kamaradna suuliga lagugu qariyo. Waa arrin aad iyo aad u halis badan. Keliyatad uga badbaadi kartaa waxay tahay inaad noqoto qof markasta taxadir badan. Maalmo dhaweyd aaladda TikTok waxaa ka dhacday ambase lagu arkay muuqaal aan aad uga naxay. Qof kastoo daawadayna oo damiirkiisu diidayay. Inan yar oo iska huruday oon waxbaba ogeyn ayaa qof guriga la joogay wuxuu ka duubay video.
waxyaabahaas soo sheegay oo dhan waxaad uga badbaadi kartaa adigoo ka warhaya dadka gurigiina soo galaa cid ay yihiin isweydii dadkan ma ku kalsoonaan karaysaa xitaa qolkaaga jiifka adigoo maqan qofna ha u ogolaanin inuu galo sidoo kale moobilkaaga adigoon sii xidhin meelna ha kaga tegin amba ha ku ilaawin qofna ha ku aaminin oo ha iskaga dhiibin telefoonkaaga waa inuu noqdo attentionkaagu markasta mid taagan daawade haddii aan su-aal ku weydiiyo dhacdooyin sidan oo kale ama kugu dhaceen ambase ma soo martay nagula wadaag xagga kommentiga waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iiday muuqaalkan maxaa ka mid ahaa waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa nagula wadaag xagga kommentiga daawade waxaan ka codsanaya inaad muuqaalkan u sheergarayso qof kastad wanaag la jeceshay faamligaaga asxaabtaada iyo qof kastoo kuu dhowba si ay iyaguna uga faa'iidaystaan sidoo kale nagu dhiirigeli inaad fiidiyogan like saarto sababtoo ah waqti badan baa iga soo galay waa anigoo ah Nadira Saciid waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan Ramadaan mubaarak dhalinyaro Sacuudi oo toobad keenay ayaa qisu ka sheekeeyay tan tusaale u noqon karta qofka dadka isku dayeen oo ceebeeyay ilaahay gurigiisa dhexdiisa ku ceebeeyay wuxuu waxaan ku kakanaa dumarka inaan daawado jin noocaas ah ku jiray ilaan jin cayro in kaal qaba ku jira dadka noocaas ah marka waxaan la heshiiyay buu dumarkan u fiirsada arintu khatarta ay leedahay dumarkan koofeerada saalonka Soomaaliya ee dumarka qurxiya mid meel haysataan la heshiiyay waxaan ku leeyahay dumarka aad qurxinayseed marada ka qaadaysa kabarada yare khafiga ay ugu soo sawiro midii walba lacagtaas aad leedahay sawirkeeda ay keen ee dayn kart marka qofku u dhacdo bal halku uu ooman yahay way soo sawirtaa tii ay qaawisada mid walba waxay tiraahdaa naan aad ku dhalaaliye ballaydhkana isu dhig kamaradana dhigo dumarkii aroosadaha ahaa kabaladeedina way ka duubtaa lacagtiina way ka qaataa saaxiibadii buu isaguna ula tagaayo intay sii baahiyeen la daawado waaba lagu majlis waaba lagu qaylaaba halkaas la daawadaa markuu arkay wixii xumaanta uu leeyahay iyo dadka kala nooc ah iyo cawrada loo soo gudbinayo isagii baa wada haddana ka yaqyaqsooday marka wuxuu la hadlay hablaha walaalaha inay ooridiisii wuxuu yiri ha tagina bahalaha koofeerada isagina uu ka daaway isagina xumaantii buu ka jaaj garaysanaya wuxuu yiri ha tagina iska ilaaliya bahalaha waa meel lagu qurmay ha tagina laakiin de waxa meesha taala qofka dadka dabagala ilaahay baa dabagala tii xaaskiisa ahaydoo gabadha yaro qurux badana way ka siibatay koofeeradii bay u tagtay tii koofeerka haysatay lafteedii bay u tagtay iyana kabaradii bay ugu naftay kadibna cawradeedii bay duubtay cajaradii bay ninkii u soo gudbisay isna saaxiibadii buu bilaabay inuu la daawado bigtii laga siiyay mise waaba tii qoyskooda wacdan laga soo siiyay cajaradii la istaarayda mise waa tii guriga u fadhiday uu koofeerka atagi ayaaba ka soo boodayda intuu qayliyu sare u booday ayuu cajaradii ka saara uu jajabiyay طبعا كوبيه ka hayaan saaxiibadii waxa igu darnaa buu kuwii aanu isugu dhaweyn ayaa noqday kuwa ugu faafin badan ceebti xaaskayga oo aan cajaradii ka soo saari waay oo aan dagaal kula galay marka taas wuxuu tusaale u tooninkaas uu ka waramayay inuu ilaahay ka argoostay subhanahu wa ta'ala markuu dadka guryahoodii ugu galay isagana gurigiisa loogu galay